cabdullaahi bni rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyaysaa markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya ثuma nunaji aladiina ataqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya anu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi uma intaa kadibna nunaji aladiina ataqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonaa wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu ku jifaa innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur'aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeennu xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducada xasuusta nebiga ayaa yidhi akhriste bismi illaah allaahuma jannibna ashaytaan allaahuma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa la sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi taasaa ii kala caddayn